waddanka 30 sano burburay oo annagu gacanteena ku burburinay meeqa sano ay qaadanaysaa inaan dib u dhisno yaa dhisaya waa koow dalka 10 sano wuxuu ku jiray amaan darro oo waxaan la dagaalayna qolooyinka argagixisada ah oo maxaan ku raahdaa nabadiidka ah oo yaqaan kaliya sida wax loo dilo iyo wax loo burburiyo meeqa sano ay qaadanaysaa inaan ka adkaano yaa ka adkaanaya waxa ka adkaanaya idinka ka adkaanaya Soomaaliyeed dana ka adkaanaysa waa mas'uuliyad wadareed haddii dad ay yiraahdaan ma aha mas'uuliyad wadareed qof walba ammaanka mas'uul uu ka yahay laakiin qayb uu ku leeyahay door ayuu ku leeyahay mas'uuliyad haduu yahay qofka shacab waxa laga rabaa inuu sheego kan dhagarqabaha ah oo dariska la ah inuu soo sheego ciidamada amniga waxa laga rabaa inay qabtaan maxkamadda u gudbiyaan maxkamadda waxa laga rabaa inay maxkamad saaraan oo ay xukumaan dawladda dhexe xildhibaanada waxa laga rabaa inay shuruucda diyaariyaan dawladda xukuumadda waxa laga rabaa inay miisaaniyadii iyo dhaqaalihii aruntiisii ay ka shaqeeyaan waa la wada leeyahay laakiin qof walba wuxuu ku leeyahay qayb uu ku leeyahay door uu ku leeyahay siyaasiyiinta xanaaqsan waxay rabaan hal qof inuu wax oo dhan qabto bal wadan burburay wadamadii hore u maray yaa waxay tahay mas'uuliyad wadareed macnaheedu waxay tahay walaalayaalow dhalinyaro ilmaheedu wiilashay gabdhaheegiyo waalidiinta halkan fadhida ha maqlina siyaasiyiinta xanaaqsan ha maqlina maxaa yeelay logic kuma shaqeeyaan waxay ku shaqeeyaan baahida ay qabaan markaasay ku shaqeeyaan ma aha wax uu adeegay mustaqbalka dhow ma aha mustaqbalka fogna ma aha mustaqbalka caruurteena qurqurxoon halkan fadhidana ma aha aqliga suuban in lagu dhiftaa ubad lagu dhalaa nabad baa dhaqaatiir caafimaad dhalaan lagu daweeyaa maasha Allah تعليل لغو دكتا أقول لغو دحلا أمد يا هاي نبات أمد يا هاي نبات waxaan doonaynaa nabadna waxay ku timaadaa mas'uuliyad wadareed iyo ku timaadaa maxaa yeelay nabadu qof walba oo naga mid ah way taabanaysaa guri gaar ah nabad ma qaadanayo markuu dariska uusan nabad ahayn waxa la rabaa marka maskaxda fiyow oo caafimaadka qabta oo logiga ku shaqeysa oo macquulka ah waxay fiirinaysaa waa idin sheegay shalay iyo maanta iyo biri maanta marka waxa noo yaala dawladani maxay qabatay qofka normalka wuxuu isweydiinaya dalkan waa burbursanaa 30 sano oo anagoo dhan burburinay maxay dawladdan qabatay oo aan qiimeeyaa waa meesha maskaxda ka imaanayso oo aysan caadifad ahayn waa idin sheegay caadifadda waxaa ku shaqaysta ninkaas xanaaqsan ama gabadhaas xanaaqsan caadifadda caqli ma aha caadifaddu caqli ma aha caqligu waxa weeye markaad xisaabinayso aad qiimeynayso oo aad fiirinaysa aad kalkuleet garanaysaa caqli ah dadkaas aan idin sheegay waxay ku shaqeeyaan caadifad dadka inay ku kiciyaan oo wax alla waxay rabaan u sheegaan oo aanan xaqiiq ahayn marka xaqiiqda waxa laga rabaa qofka logiga leh oo maskaxdiisa isticmaalaya wuxuu leeyahay marka qofkaas dawladdan wax laga sheegayo maxay ballan qaaday horta dib u fiiriya imisay joogtaa hadda dawladdu waxay ballan qaaday bacdama caado dhaqan xumeeda uu jiray oo muddo soo ragaadiyay dawladnimadeenna oo la yiraahdo khilaafaad madaxweyne iyo prime minister ah dawladdan waxay ballan qaaday khilaafaad inuusan jirin maxaa yeelay khilaafaad hadduu yimaado amniga farahu ka bixi hadduu khilaafaad jiri lahaa hawshaan lama qabteen
hawshan waxay ku timid iyo waxyaabo kale maxaa yeelay ballantii waan fulinay oo ahayd khilaafaad inuusan jirin oo la wada shaqeeyo oo laga shaqeeyo kow dowlad wanaag waxaa laga hadlay amniga waxaa ka horeeya dadka amniga qaabilsan ciidamada sharafta badan oo noo dhinta maalin walba oo dhaxanta iyo roobka iyo kaneecada ay ku cunayso xuquuqdoodii ma heleen waa dowlad wanaagga ka mid tahay waxaan idiin sheegaynaa xuquuqdooda bil walba waa helaan xildhibaanada sharafta leh iyagana xuquuqdooda waa helaan shaqaalaha rayidka iyagana xuquuqdooda waa helaan waa dowlad wanaag marka dhaqaalaha dalka oo aan ku bixinayno howlahaas xaaladdiisu xaggee maraya waxaan idiin sheegayaa oo aan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo xukuumadda shaqada ay ka qabatay arrimaha dhaqaalaha oo maanta world bankiga bankiga adduunka uuna siiyey dhaqaale deentii ugu horraysay oo soomaaliya la siiyo burburka ka bacdi kuma imaanin inaan iska qoslayno ama iska faraxsannahay ama iska sheeko fiicannahay maaha shaqay ku timid waa nala aaminay dowladdiina waa la aaminay European Unionka iyaguna sidaasoo kale xukuumadda shaqo fiican ay qabatay dhaqaale aruurintii iyo bixintii waxay noqotay wax cad oo cad iyo noqotay iyadana waxay keentay in la siiyo $120 milyan oo aanan weli Soomaaliya intii burbur ka dhacay uusan soo gaarin waxay noo qireen inaan nahay dowlad hufan oo nidaamsan waxayna ku timid khilaaf la'aan iyo ku timid waxay ku timid inaan la dagaalano musuqmaasuqay ku timid in aynan u dulqaadan qofkii isku daya shacabka Soomaaliyeed hantidooda inuu shakhsi ahaan u qaato oo isaga iyo caruurtiisii uu guriga ugu dhiso ummadda kalena ay iskuul la'aan tahay biyo nadiif la'aan tahay caafimaad la'aan tahay mushaar la'aan tahay xaaraan maqdaca weeye waa diina taas dhaqaaluhu inuu qubto ummaddu ay wada qadaan qabaal weyn kanu tosho haqaldamin ka joog waa mahadsantihiin arrinta kale waxay tahay la dagaalanka qabyaaladda wax fiican maaha waana soo aragnay khibrad buuxdaan yaan ku leenahay qabyaaladda waa waxa dalkeena burburiyey waxaan idiin sheegayaa oo aan markhaati ka ahay dowladdaani inaysan oggoleen raallina ka ahayn qabyaalad wax badan waa noo harsan yihiin meeshii aan rabnay ma gaarin laakiin waxaan joognaa tusaale inaan samayno oo qof walba ma aha inaan iska hadlaynee aan tusaale aan noqonno si qof walba uu noogu daydo maxaa yeelay waa soo aragnay qabyaalad Soomaaliya meeshay gaarsiisay wax wanaagsan ma aha wax horumarka ummadda ka shaqeeyana ma aha wax dowlad wanaag ka shaqeeya ma aha walaalayaal adeerayaal ilmahayga wiilal iyo gabdhaba waxaan idiin sheegayaa dowladdaani waa dowladdii idiin soo jeestay inay ka shaqayso horumarkiina iyo mustaqbalkiina waqti ma dhawa waqti badan waa haysanaa hadduu ilaah yidhaahdo oo aan dadaalkeenna laba jibaarno oo wax badan baan u baahannahay inaan qabanno oo qabyo naga ah oo aan doonayno inaan dhammaystirno laakiin waa nagu ballan inaan ka shaqeyno dalkan muddada yarta aan haysanno inaan gaarsiino horumar la taaban karo horumarkaas la taaban karo waxaan keennay program la yidhaahdo olole la yidhaahdo isxilqaan waxa weeye dib u dhiska dalka waxa weeye waxay tahay maxaan ku rahdaa dib u dhiska dalka dib u xoreynta dalka iyo dib u soo nooleynta dhaqaalaha
waxbarashada alxamdulilah maanta hadda hal hawl yaa naga hartay oo loo baahan yahay inaan xoojinno saddexdaas arrimood yaa noo yaalla oo aan doonayna caalamka inaan kula tartanno diyaar ma u tihiin inaad qayb ka qaadataan dhalinyaro qayb inaad ka qaadataan dhalinyaro diyaar ma u tihiin annaguna diyaar waxaan u nahay wax alla wixii aan hayno inayna ka hagran muddadii naga habsaantay oo naga hallawday inaan gelinno isxilqaan oo qof walba oo Soomaaliyeed oo muwaadina inaan ku dhiirigelinno inuu ama waqtigiisa geliyo ama xoolihiisa ku bixiyo si dalkaani si wadareed aan u dhisno ammaankiisa u soo celinno dhaqaalihiisana dib u soo yagleelno waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliyeed hasugin qaadane dalkaaga kuugu filaane dunyada badda iyo bariga ilaah kuugu deeqayo dalaga beeraha qoto dadnimadaadii u noqo dunidu ay kugu taqin madaxweynaha buugtoo bixinaya hala fariisto waxyar fariista buuga la bixinaya buugtii ugu horeysay ee manhajka ee la diyaariyey waxyar fariista safiyo macallin xasan inaan ku bilowno waa 5 arday oo ka socota 5 arday oo ka socota ardada halka fadhida oo dugsi loo soo xulin sidoo kale waxaa ku xiga waxaan loogu xigayaa anis maxamed deeq siciid asaguna wuxuu ka mid yahay ardada nasiibka u heshay buugtii koowaad in lagu bilaabo cabdimaalik cabdiraxmaan cumar soo dhawow wiilkayga yar asaguna wuxuu ka mid yahay ardada nasiibka u yeelatay in buugta lagu bilaabo oo uu caawa gurigii la tago oo keligiis akhristo ruwayda maxamed soo dhawow ruwayda falyatafadal soo dhawow ayaduna waxay ka mid tahay gabdhaha dhallinyarada ah ee nasiibka u yeeshay waxaa noogu dambeeya salmo xasan macallin oo aan leenahay adiguna nasiib aad leedahay adoo ardada matalaya manhajkii buwaagtii ugu horreysay caawa la hogaay madaxdiyo nidaamduqaadeen nadaamiyo wadaniimo inaad noo horseedaan mudane wasiir aad iyo aad ay u mahadsantihiin halkaas ayay nooga eg tahay hadiyaddii aad noo qaybinayseen waxaan idin leenahay soo dhawaada waxaa halkan ka muuqda kaladar wasaaradda ay diyaarisay oo ay ku cad yihiin maasha allahu wixii loogu talagalay mahadsan idin wasiirkaa guddoonsiiyey madaxweynaha falyatafadal mudan madaxweyne soo dhawaada madaxda ayaa marka hore jidka u bannaynaynaa kadibna waa fasaxaynaa si gaara waxaan ugu mahad celinaynaa telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo telefishinka universal oo si life adduunka oo dhan maanta looga fiirsanayay qaran iyo universal waxaan kaga mahad celinaynaa gudbinta barnaamijyada danta u ah bulshada waa ku ammaanan tihiin idinka iyo madaxdiinnuba aad iyo aad sidoo kale ardada waxaa la codsanayaa inay fadhiyaan maamulka wasaaradda agaasimaha guud wuxuu weydiisanayaa ardadu inay harto oo ay fadhiisato si loola ballamo waa mahadsan tihiin dhammaantiinba mahadsan idin